marka ilaahay kitaabkiisii baa haysataan sunnihii nabiga waan haysanaa war saddex shay ku dadaala ummadiha war saddex shay ku dadaala haddaad saddexdaa shay ku dadaashaan waxaan waxba idinka guri maayaan ina kayda shayطaani kaana daciifan shirqoolka ibliisku wuu sahlan yahay waa daciif kaydka dumarkaa ka culays badan ina kayda kunna cadiim waxaad yeeshaan baaraka allaahu fiikum war weysada ku dadaala weysada ku dadaala waxay odhan jireen dadkii hore saalixiinta ahaa alwuduu silaaxu lmu'min weysadu waa hubka mu'minka wallaahu yuxibu lmutahiriin ilaahay wuxuu jecel yahay dadka tahaaradana dee weysadii baa awal ka ah weysada markaa weysaysataan wax allaaliya wixii dunuub sakaa'irah ee la sameeyey baa kaa daadanaysa taad indhaha ku aragtee sakiiraad way daadan taad gacmaha ku qabatee sakiiraa way daadan taad lugaha ugu dhaqaaqday dhibicda ugu dambaysay raaci waxaan kuu nuglaynayaa inay ishu ku gasho ama sixirku ku haleelana waa min kasbina wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfu can kaiir haddaad weysaysato maxaanku idhaha dunuubtii sakaa'irtaydoo dhan ay maydhanto waxaa ku weheshanaya malaa'igta markaad dikriga ilaahay laasimto kuuma soo dhowaanayo dikriga ilaahay ha la laasimo kuuma soo dhowaanayaan qofka bini aadmiga dikriga ilaahay aan laasimin ayaa shaydaanku ku xidhmaa waman yacshu can dikri الraxmaani nuqayid lahu shayطaanan fahuwa lahu qariin qofku hadduu dikriga ilaahay uu iska daayo markaasaa lagu sidkaa ibliiska war dikriga ilaahay miisaankuu inoo gelayaa dikriga ilaahay ha la laasimo aladiina aamanuu wataطma'inu quluubuhum bidikri اllaah alaa bidikri اllaahi taطma'inu اlquluub qalbi xasiloon oo aan cabsanayn ibliis waxbaba kama qaado xadiidkii saxiixa ahaa waa idinka wada garanaya ruuxu markuu gurigiisa ka soo baxo haddii uu yidhaahdo bismi illaah tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ilaa billaah waa saddexdaa eray bismi illaah tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ilaa billaah faqad hudiita wa kufiita wa wuqiita faqad hudiita wa kufiita wa wuqiika saddexdaasay malaa'igtu ku tidhaahdaa markaad gurigaaga ka soo baxaysa intaa haddaad ku akhrisato hadhow hadduu ibliis xadhig marani uu damco inuu wax ku yeeleeyo kuwii kula socday ee kuu maaro waayey ayaa la hadlaya oo odhanaya maxaad ka guri kartaa ruux xagga rabbi laga ilaaliyey oo laga xifdiyey oo la maanacay maxaad ka qaadi kartaa sidaasaad gurigaagii adoo bad qaba aada ugu soo hooyanaysaa war dad yahow waxaa ku dadaashaan sadaqada ku dadaala asadaqa tudfi'u qadaba araxmaan sadaqadu waxay baktisaa cadhada ilaahay dhibta ku gaadhaysaana waxay ku timaadaa cadhada ilaahay hadday dhibi kugu dhacdo waa bimaa kasabad yadak waxaase laakiin bakhtiinaya waa sadaqada asadaqa tudfi'u qadaba araxmaan daawuu mardaakum bisadaqa xadiidkii xasanka ahaa ee abaa hurayra warinayay war sadaqada ku dadaala oo dikriga ilaahay ku dadaala oo haddii ilaahay ka dhigo weysada ku dadaala waxaan wax loo dhiga lahayn oo ina anfici doono fi اdunya wاlaakhira salaada subax iyo jamaceeda qofka salaada subax jamaca ku tukada fahuwa fii dimmati اllaahi tabaaraka wa tacaala fahuwa fii dimmati اllaah ruuxa salaada subax wakhtigeeda tukada wuxuu gelayaa ilaahay magantiisuu gelayaa ruux ilaahay magan geliyeyna wuxuu soo gudbi karaa ma jiraan baaraka allahu fiikum war waxani waa saqiir waana daciif waana mahiin weeye shaydaanku kaydkiisuna waa daciif innagunbuu daciifnimo inaga helay mooyaane ruuxu hadduu ilaahay ku xidhmo oo dardaarankaa aan idin siiya aa qaadataan walaa rusheeyaydinaan u baahanayn walaa bini'aadmi kalaydinaan u baahanayn walaa jin baan waxba idiin dhimayn walaa il baan waxba idinka qaadaynin
ilaahay xisnigiisa qaata ilaahay dhufayskiisa uun gala